السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو dhawaada asxaabtaydii waa mar kale walaalkeen Axmed Xirsi. Sidaad u jeedaanba maanta waxaan ka hadli doonaa video ka duwan fiidiyoyaasha hore aan soo bandhigaynay. Waa video aan kula hadli doona hablaha walaalaheena iyo sidoo kale aan ku soo bandhigi doono gabadha asturan iyo gabadha aan asturnayn. Dhibaatooyinka ay leeyihiin asturnaan la'aantu iyo faa'iidooyinka ay leeyihiin gabadhu inay asturnaato. waa fariin aan ku soo tabinayno cod dheer oo ku leenahay hablaha walaalaheena isku astura sida raxmo oo kale u qurux badnaada sida raxmo oo kale akhlaaq u lahaada sida raxmo oo kale. Raxmo videoga waxaad uga dhex jeedaan gabadha walaashan Raxmo Rose waa inay example u tahay hablaha kale. Gabadha wanaagsani waa inay ku dayataa Raxmo. Gabadha rabto inay wax qurux badan soo gudbiso waa inay Raxmo ku dayataa akhlaaq ahaan iyo dhaqan ahaan. Hablahan kale waxaan u sheegaynaa ama aan u soo gudbinaynaa jirkaaga oo qaawisid ceebahaaga oo dibadda soo dhigtid kuma keenayaan waxa ay Raxmo weyday. Waxa ay Raxmo heshay qaawanaan kuma helin taageerada ay heshay asxaabta ay heshay dhiirigelinta ay markasta la kulanto iyadoo ixtiraam leh xishoonaysa dharkayga xidhan akhlaaqdeedu u dhan tahay ayay ku heshay. adigana sidoo kale walaashayday dhageysanaysaa gabadha TikTok ku jirtay gabadha videogan ku jirtay ta rabta inay isqaawisay ta hore isku qaawisay waxa laga rabaa adigoo xushmadaada leh dharkaaga xidhan aanan isqaabin ceebahaaga dibadda soo dhigin sida Raxmo oo kale isku astur wax qurux badan soo dhig kumana khasaaraysid adoona ceebahaagi awradaadi wixii oo dhan dibadda soo dhigin adoo aabaha walaalka familkaagi niyada ka dilin bulshadii kugula noolayd bulshadii kugu hareereysnayd niyada ka dilin ku habaarin ku dhibsanin ka ordin naclad iyo malaa'iktu ay ku nacladin cidna niyada ay ka nicin ka hor intaanad fiidiyoyaashan aad bilaabin intaanad TikTok soo gelin waxaad ahayd gabadh asturan ixtiraam leh walaalkeed ku faano aabaheed ku faano in adeerkeed ku faano dadka oo dhanba quruxdeeda iyo akhlaaqdeeda ay ku faanaan. maantana qiimahaagii hoos ayuu u dhacay. walaalka kama dhex sheekaysan kara ragga qayrkiya aabaha kama dhex sheekaysan kara odayaasha qayrkiya hooyadaa sidoo kale waayo gabadhoodii oo qaawan oo ceebaheegii oo dhan la arkayo ayaa TikTok dhex taalo. maxaa u hadhay markaas? haddaba fariinteenu waxay tahay hablaha waad ugu wacnayde huma qurux lahayde hal door dumar baad ahayde heblaayo maxaa ku diirtay dubkaagi maxaad u fiiqday dirays wacan baad lahayde surwaalka maxaad ka doontay daboolka wixii ku fiican haddii la dabooli waayo wanaag way kala durkaane maxaad u daboolan weyday dahabkiya canabkan muuqda maxaad dumarnimo ku diiday muxuu dariskiya adduunku u daawani cawradaada damiirkii maxaa xabaalay diintaadii maxaad u dayrin maxaad danagaal ku raacshay duruuftee TikTok ku keentay. hablaha waad ugu wacnayd huma qurux lahayd oo marka aad dharkaaga xidhatid labiskaaga marka aad xidhatid hablaha waad ugu qurux badnayd. hablaha indhaha soo jiita ayaad ka mid ahayd. labiskaaga oo kaliya ayaa dadka soo jiidanayay. maxaad ka doontay surwaal daboolka wixii ku fiican waxyaabo waxaa jira daboolka ku fiican haddii la dabooli waayana way xumaadaan caadi ma noqdaan. haddaba waxyaabaha daboolka ku fiican maxaad u daboolan weyday iyo ka mudan in la daboosho iyo ka ku qurux badan in la qariyo iyo ka qiimo ku leh in la qariyo maxaad u daboolan weyday daboolka wixii ku fiican haddii la dabooli waayo wanaag way kala durkaane maxaad u daboolan weyday maxaad ceebahaaga u qarsan weyday maxaad dharkaaga u xidhan weyday lagugu garanayay aad dadka kaga qurux badnayd dadka kaga sharaf badnayd dadka aad kaga tilmaamnayd maxaad u xidhan weyday dirays wacan baad lahayde
surwaalka maxaad ka doontay labis qurux badan baad lahayd jilbaab baad lahayd dhar lagugu garanayaad lahayd ood ummadaha kale aad kaga socnayd maxaa surwaalka kuu geeyey maxaa jirkaaga qaar qaawiyey maxaase kuugu wacan maxaase qurux laga dhaxlaa in la isqaawiyo ummadihii hore isqaawiyaba way ku halaagmeen adigu quruxda aad ka dayday maxay tahay oo wixii sharafta lahaa aad ka tigtid oo wixii bilaa sharafta lahaa aad dooratid wixii qiimaha lahaa aad ka tigtid wixii bilaa qiimaha aad dooratid maxaad dumarnimo ku diiday muxuu dariskiya adduunku u daawanay ceebahaaga waa inta ugu yaab badan markaad aqalkiina ka soo baxdo adiga oo labisan ku labisan dharkaagii jilbaabkii lagugu yaqaanay ixtiraamkii iyo quruxdii lagugu yaqaanay wiil kastoo ku arkaas wiilka dariska wiilka jaarka wiilka iskuulka kula dhigta kuwa ku garanaya kuwa familka tihiin waxay noqonayaan qof la isku sheego ayaad noqonaysaa hiblaayo oo kale qaarkood waxay odhanayaan hiblaayo oo kale ilaahow isii hiblaayadanba ilaahow isii ilaahow dadkayga sida hiblaayo oo kale iga dhig ducooyin aad arkayn baa kugu socoto marka aad isqaawisid ee tiktok aad soo dhigtid adduunka oo dhan lagaa daawanayo sheekhu ku arkayo ku habaarayo hooyada da'da ku arkaysa ku habaarayso inka uu ku arkayo ku habaarayo dadka oo dhan ay ku leeyihiin subxaanallah ay ku leeyihiin tan oo kale ilaahow ummadayda ha ka soo saarin caa'iladayda ilaahow ha ka dhigin intay ka dhalatana ilaahow u gargaar ay ku leeyihiin ishooda miyaanad ka baqayn habaarkooga miyaanad ka baqayn isha bili-aadanka ee dhagaxa jabisa inay adigana kugu dhacdo habaarka inuu kugu dhaco ceebahaaga inaad asturatid inaa adoo xushmad le aad soo geshid sidaa raxmo oo kale wax fiicanna aad ku heshid waa sharaf kuma leenaha tiktoka jooji kuma leenaha social media ha isticmaalin waa nasiibkaaga iyo casriga aad nooshahay bal u isticmaal sida wanaagsan u isticmaal shay kastiba wuxuu leeyahay laba dhinac ayuu leeyahay waa sida seefta dhinacna wanaag ayuu ku leeyahay dhinacna xumaan ayuu ku leeyahay cidda sida xun u isticmaalaysay adi ayay ku goyn doontaa cidda sida wanaagsan u isticmaalaysayna adi ayaa faa'iido ku joogo anigu sheekh ma ihi kuma xadiisayo laakiin waxaan kuu sheegayaa dareenkii walaalnimo wuxuu walaalkaa kugu dhihi lahaa wuxuu aabaha kugu dhihi lahaa wuxuu wiilka familka kugu dhihi lahaa wuxuu qof kasta oo ku arko kugu waanin lahaa ayaan kaa soo gudbinayaa haddaad iga qaadatina aday kuu taallaa haddaad igu diidadna aday kuu taallaa iga guddoon ha ku soo gaadho asxaabta arkaysaay sii shaargaree asxaabta sii gaadhsiiya maalin maanta ahayn ayaad dareemi doontiin dad bay wax u tari doontaa haddaad maanta asturantood fiideogan arkaysid sii gaadhsii taanan asturnayn aad garanaysid haddii aad arkaysid inay dad ay gaadhi karto ama waxay u tari kartana sii gaadhsiiya waxaan iga codsanayaa fiideogaas inuu gaadho qof kasta oo Soomaali oo TikTok isticmaalo ama qofkiisu isticmaalo sidoo ugu waaniyo wax ugu sheego uu dabka uga qaato sidoo kale ku xidhnow page-kayga ama YouTube-kayga ama TikTok-kayga si aad u aragtid waxyaabaha aan soo dhigo waad mahadsan tahay wassalaamu calaykum waraxmatullahi